بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوداyaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada falanqayntii wararka qodobada maanta aan idinku hayo waxa ka mid noqon doona halkii ayay ku dambeysay gabadhii Igraan ee la weysanaa in dhaweydba xog ayaan idinkaga hayaa meesha gabadhaasi ay joogto iyo meelihii u dambeeyay gabadhaasi lagu tumayo qodobada kale ee aan maanta idin hayana waxa ka mid noqon doona dagaalkii ka socday gobolkaasi Mudug oo si xoogaysanayay ciidamada Galmudug oo goobo hor leh ku sii siqaya taliyaasha ciidamada ayaa halkaasi maanta ku sugnaa iyagoo dadka la ciiday qodobada kale ee aan idin hayo waxa ka mid ah guddigii doorashooyinka qaranka oo howlahoodii guda galay iyo lacagta laga sugayay qaramada midoobay waliba beesha caalamka oo wali aan soo dhicin 36 milyan oo lacaga oo laga sugayay in beesha caalamku ay bixiso oo wali hakad ku jira guddiga doorashooyinka oo ka cabanaya inaysan wali lacagtii soo gaarin qodobada ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobada kale aan idin hayana waxa ka mid noqon doona dagaalkii ka socday dalkaasi Itoobiya oo wajiyo cusub yeeshay iyagoo meelo kala duwan u dagaal haddaba uu ka socdo deegaanka Canfarta oo iyo Tigrayga oo foodaystay iyo waliba dalka Djibouti iyo dalkaasi Itoobiya tareenmadii isku xidhay oo hakadii ku yimi ciidamada dalkaasi waa ciidamada TPLF oo qabsaday meelo kamid ah wadadaas tareenkaas uu maro ciidamada deegaanka Soomaaliduna waxay ka qayb qaadanayaan dagaalkaasi iyagoo oo Mustafa Cagjar lagu eedeeyay in uu wado in ay dadka Soomaalida halkaasi uu ku leynayo sida ay sheegeen dadka deegaanka Soomaalida qodobada iyo qodobo kale ayaan idinku hayaa maanta barnaamijka falanqaynta wararka haddii aynu ku bilowno gabadhii in dhaweyd baraha bulshada haysatay ee la afduubtay Igraan ayaa waxaa ka soo baxaya warar kala duwan iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in gabadhaasi lagu hayo qaybo kamid ah magaalada Muqdisho wararka ayaa intaasi noo xaqiijinaya in gabadhaasi Igraan Tahliil oo lagu magacaabo in haddaba ay ku sugan tahay meelo kamid ah magaalada Muqdisho iyadoo gabadhaasi la soo sheegayo in marba xaafad kamid ah magaalada Muqdisho la geynayo waxaa la soo sheegayaa in gabadhaasi oo haysay dukumeentiyo badan hadda la sheegay in ay joogto meelo ka badan oo kamid ah magaalada Muqdisho marba la geynayo xaafadihii ugu horeeyay la geeyay waxaa kamid ah degmooyinkii degmada Boondheer Cabdicasiis iyo waliba degmada kale ee lagu magacaabo wadajir ee magaalada Muqdisho wararka ayaa intaasi noo xaqiijinaya in gabadha lagu magacaabo Igraan Tahliil ay ku sugan tahay hadda meel kamid ah magaalada Muqdisho oo loo soo shoodiyay shuruudo dhowr oo ay kamid yihiin in gabadhaas haddii ay rabto in la sii daayo aysan dhihin in dawladda Soomaaliya ayaa afduubatay aysan dhihin iyadoo laga duubay baa la sheegayaa muuqaalo haddii ay sheegtay in dawladda Soomaaliya ay afduubatay in la sheegayo in gabadhaasi muuqaaladaas laga faafin doono wararka kale ee gabadha lagu xujeeyay ayaa kamid ah waxaa la sheegayaa in gabadhaasi kooxo kale gacantooda la geliyo ay dawladda Soomaaliya ay sheegto markaa ka bacdi waa la afduubtay oo ay ku soo badbaadiso dawladda Soomaaliya ayaa la sheegayaa in ehelada gabadhaasi ay ugu wacday xafiiska nabad sugidda iyada oo loo sheegay in gabadhii la raadinayo oo ay la raadiyaan sida ay sheegtay dawladda Soomaaliya wararka ayaa intaasi xaqiijinaya in maalmahan soo socda la sheegayo in arrin buuxda gabadhaasi laga helo iyada oo la soo sheegayo in gabadhaasi dawladda Soomaaliya ama hay'adda nabad sugidda gaar ahaan ay sheegtay in shuruud ay uga dhigto in aysan haba yaraatay sheegin in dawladda Soomaaliya ayaa waxa la sheegayaa in ay sii xoogaysteen iyadoo oo halkaasi maanta saraakiisha ciidamada hogaamiyaha Janaraal Cabdi Qaybdiin Saadiq Joon iyo taliyaha ciidamada lugta Soomaaliya Maxamed Biixi ayaa waxa ay halkaasi maanta dadka kula ciideen wararka ayaa noo xaqiijiyay halkaasi maanta ay dowladdu soo bandhigeen ciidamada Galmudug daraawiishta Galmudug iyo ciidamada Gorgor iyo Danab oo ay kala hogaaminayaan saraakiisha ciidamadaasi iyagoo deegaamo hor la sii qabsanaya Axmed Macalin Fiqi wasiirka amniga ayaa waxa uu sheegay in ay sii socon doonaan oo deegaamada Xaradheere iyo waliba deegaamo kale ay ku sii siqi doonaan ciidamada Galmudug iyo kuwa qaranka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay inaysan joogsan doonin
dagaaladaasi madaxweynaha galmudug oo dadka kula ciiday magaalada gaalkacyo ee gobolkaasi mudug ayaa waxa uu shaaca ka qaday inay sii socon doonaan dagaalada oo ka socda koonfurta gobolkaasi mudug oo galmudug uu sheegay in deegaanada ka maqan ay qabsan doonto sida uu hadalka u dhigay Saadiq John iyo waliba maxamed bihi taxliil iyo sanatan cabdi qaybdiid ayaa jiida hore ee magaalada Camaara duleedkeeda kula ciiday dadka deegaanka galmudug iyagoo oo sheegay inay sii socon doonaan dagaalada halkaas ka soconaya guddigii doorashada Soomaaliya ayaa waxaa la soo sheegayaa in haddaba ay bilaabeen shaqadoodii iyaga oo cabasho ka muujiyay in lacagtii la ballan qaaday ay gabi ahaanba aan soo gaarin wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in ay bilaabeen in gabi ahaanba aysan lacagtii 40 milyan ahayd la sheegay in lagu bixin doono doorashada Soomaaliya aysan gabi ahaanba soo gaarin lacagtii lagu bixin lahaa doorashada Soomaaliya ayaa gabi ahaanba aysan soo gaarin oo 4 milyan oo kamid ah ayaa loo qorsheeyay in dowladda Soomaaliya bixiso halka 36 milyan oo kamid ah ay bixiso beesha caalamka waxaa la soo sheegayaa inay haysato caqabadii ugu xooganeed oo ahaa dhaqaalaha iyo ergada lacagta la siin lahaa wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in haddaba ay guddiga doorashadu soo saari doonaan bayaan ay kaga codsanayaan in lacagihii lasoo fududeeyo beesha caalamkana waxa ay wali cagajid ka muujinaysaa doorashada Soomaaliya iyadoo sheegtay in ay wali mugdi u ku tiro sida ay sheegtay walow doorashada Soomaaliya hadda dhamaanteed lagu heshiiyay qodobada wararka kalena waxaa ka mid noqon deegaamada Soomaalida iyo ciidamada dalka Itoobiya ayaa waxa ay wadaan hawlgal ay isu diyaarinayaan in ay dagaal ku qaadaan gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya taliyaha guud ee ciidamada dalkaasi Itoobiya General Burhan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay sugayaan amar kaga yimaada ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed dagaal xoogan uu sheegay inuu hadda ka soconayo xadka Canfarta iyo Tigreega ay wadaagaan uu sheegay inay soo weerareen kooxda TPLF ee uu ku sheegay argagixisada waa sidoo hadalka u dhigay waxaa la soo sheegayaa maleeshiyaad kale oo mucaarado Canfarta iyo TPLF oo iskarabsanaya in ay jareen tareenkii u dhex mari jiray Djibouti iyo Itoobiya iyagoo la sheegay in haddaba ay dagaal xooggan halkaas uu ka socdo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in ay burburin doonaan ciidamada TPLF oo uu sheegay inay gaarayaan 120 waa sida uu sheegay halka ciidamada Itoobiyana uu ku qiyaasay 400,000 oo sheegay iyo waliba maleeshiyaadka deegaanka Amxaarada iyo qowmiyadaha kale inay ka qayb qaadanayaan madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Umar ayaa shaaca ka qaaday in ay wadaan abaabulkii ugu xooganaa oo ay ku difaacayaan dalka Itoobiya dadka deegaanka Soomaalida ayaa Mustafa Cagjar ku eedeeyay in uu dhex galay dagaalo qowmiyadeed oo haddaba ay isku haystaan Amxaarada iyo Tigreega Soomaalidana aysan u baahnayn in dagaalkaasi ay ka qayb qaadato guud ahaan barnaamijkeeni falanqaynta wararka oo aad kala socoteen channelka YouTube-kan ku leenahay iyo waliba page-keena Abshir Joker waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe dhahdo page-keena inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa nabadgelyo